السلام عليكم soo dhawaada muuqaalkan waxaan rabnaa inaynu ku falanqeyno ama aan isku soo gudbiyo sida aad u dooran lahayd profilka ugu wanaagsan ama kugu habboon sanadkan isaga ah waxa jira boqolaal profil oo suuqa ku jira haddii aad imka internet ku baartid oo kale boqolaal ba ku soo baxaya laakiin waxa muhiim ah inaad qodobadan aad raacdid si aad isaga hubisato ugu wanaagsan anagu waxaan soo gudbinaa profilada aan qodobadan u eegno qodobadan haddii ay waafaqaan kulligood waan soo gudbinaa sida shirkadahan aan soo gudbino kale Funny Next iyo Funny FX labadaas ba qodobadan baan u eegnaa kadibna xisaasan dadka u soo gudbinaa marka haddii aan isla eegno qodobadan waxay yihiin waxaan rajaynayaa in muuqaalka ilaa dhamaadkiisa daawan doontid oo ilaa 10 qodob regulationkiisa iyo reputationkiisa profilkan sharci ma leedahay sharcigeeda waa inaad raadisid waddanka sharciga ka haysato kadibna وأنا ساعة قناعتي هدير شرعي في عنها يسطو وضنا كاي يسطو وهيدها وضنا كشرعي جو قابل سنة إكسيان يكون صحيحين شركة دعوة مهم قدو كاكوبات وكوباست قدو كلابات وحوية لافريج كان يفننك شركتها قاربة شراء سكام أو قف كلافريج كردية كدبنا وسارس كوكلا مركا هاي لافريج هديت هاي شركة داسي وريسكي إسكيلالي لكن هدي أي تهاي لافريج كده هدو يري هاي أكون وقت قادم كرتا شركة داسنا وحيكون قانسا من قلب كلابات كوب بوحيسة قلب استحاد وحوية بروفيس فليت كي يفيق بروفيس فليت كو وإنه شركتها بروفيم كا فندد كا سفني رفيق سوكلا وين 50 أرو كهوس قل كيو كونتنت سو تا أكون فندد الوجودي بيا ما ها أكون شارك في الابلكيشن المريسيد مركوان سكيل على السيت إنه بروفيس فليت كو 50 كهوس يو بدنك 60 70 يمكن 80 بين مريسة حتى أو واحد شراء شرعي قاع عصب باشراء قيمة لمسة عصب سنة كيوتراك الشيء كغف كفة إذا سنة هي قال كي ستيت أنا يو بروفيس بيل كان هيليا قيمة لمسة نمو هيليا ما كان فيه كان واحد ويفيه وينو ده فيه معقولة وياهي سو كلا واحد آت سجى إلى هذا فيه كسؤال أبلا أبنية شكرا قارب باشراء بيل والبر غير فيه كقادر أكو كمان فايدة كسمين أما كسمين أما باس أما هباسين waxay ka rabaan fee marka kuwana iska ilaali waa fee one time oo noqdo shirkada Funny FX Funny Next Fidelity Crest iskaas oo kale one fee oo markii fee laga qaaday marka akoonkaas hadii lacag ku darin ama ku dar waa inaad marka dambe aad faa'iideysan faa'iido kala qaybsan karaan soo kale profit split shirkadaha funded challenge-ga aad maraysid waa inaan 8 ka hooseyn 80% waa faa'iidada aad qaadan kartid maadaama laba challenge soo martay oo lacag inta laga shaqeysay aad qaadano kaga gudbisay labadaas marka funding ka noqotay 80% aanu ka yaraan lacagta profit share-ka qodobka afraad wuxuu leeyahay risk management-iga policy uga yaal sida maximum down down oo kale waa inaanu maximum ku aanu ka yaraan 8% 8% dadku ka yaraan shaqada suuqa khasaaro badgeed saadhto كوين 10% 8 9 مراها سوين نقطة حتى كبتنا كبسي ونكسب ليه اللصق وإنانو 5 كهوسين أما 4 كهوسين تو 4 كهوسيو معقول معها أكون كقاعدة الشركة داس سكتك صوتها ريسك فيد جلسة معقول معها 3% ما نبي لقيا بيني كهجري كتو كوين 5% 4% مراها سوين نقطة كايسك إلى هذه هدي لو حديدو وحلو يقارنه لط سايس كيو حاسوا إسك عادي adiga riskiga la manage kareynaya wax mushkilada ma laha anigu qofka lot size kala xadidayo diidaha aad ma la yaaba sababtoo lot size ka hadii wax yar laga dhigo xataa waa macquul oo shirkada ka gudbi kartaa lot size waa risk management igu baab adigu saxaya hada laga shaqeeyo qodobka sharaad waxa weeye supportiga waa inaad shirkadaas fiirisid oo ay yeelato shirkadaasi live chat shirkada kale live chat وين يا توي الله اللي كرت هدي أنا هذا كلام هذا كريم معقول ما هذا الشركة داسينات إيميل كده هذا يديه وكل وقت ده بقى إيميل لكن وين هل كاني شقين ناس وقفك أفرادات ساعات العاون كرم كأي درا كده دال إن شاء الله إن تسكفي ريسيد إن إلى هاي support withdrawal policy أي كحيجة قدر في الحالة withdrawal كواحد مهم إن الشركة دارت تسكوه بس قف withdrawal كسمي قف تكررنيسي ما قف يوتيوب كدعوتي وإن تقف صوهش زرت withdrawal سمي أبروف أي تحي مركز الشركة دارت withdrawal كده وقوع عداده
ayaad waxaad hubinaysaa kala qodobka kale ah withdrawalka waxyaabaha ay ku bixiyaan lacagaha waxay ku diraan crypto ku diraan ma waxay ku diraan bangi bay ku diraan ma iska hubisid marka iska hubisid waxyaabaha ay ku diraan wixii adigu haysatay ku diri kartid ama wixii Soomaaliya loogu soo diri karo ma aad ka heshid badan cryptada inaga aad inoogu wanaagsan waa degdeg siiya badan tahay sidoo kale Soomaalida oo wada isticmaasho qof ku sarfana waaymis anagu waan sarfnaa shirkadaha dadka way sarfaan marka ma waaysid marka withdrawal policy-ga iska ilaali aad iyo aad muhiim tahay sidoo kale withdrawalka markaad fiirinaysid waxa weeye waqtiyada ay qaadato waa isagana iska ilaalisid waqtiga qaar qaadato waqtiyo badan ka waqtiga qaadayso ilaa 4 cisho qaadayso waa macquul waa caadi qaar way 24 hours qaadata marka caadi location-ka iyo legal considerations-ka waa in iska ilaalisid shirkadan location-ka ku taalo halkay ku taala shirkad Hindiya ku taala shirkad Mareykan ku taala isku macquul ma isku ma aha martabad ma yani Mareykanka waxa ka jira hay'ado waaweyn oo daba gala shirkadahan oo kale oo haday sharci ka haystaan aan ogolaanin xataa inay wax yar oo isticmaalna sameeyaan laakiin shirkad Hindiya ka jirta ama shirkad ka jirta wadamada magaraas aqaalada iska hooseeya ama wadamada sharciyadooda aan awood badan lahayn shirkad South Africa ku taalo kale ama shirkad wadamada Afrika ka tirsan kale ku taalo taada kun ka furatay risk ku jirta sababtoo cid daba gashaa ma jirto qof baa website ka furan kara oo magaraansa dawladana ka dhuuman kara saan ku sameyn kara laakiin shirkadahan kale ee Mareykanka Canada Europe Qobrus wadamadaas shirkadaha ku yaala sharciyo waaweyn baxda oo qabta marka iska ilaali inay shirkadan aad akoon ka furanaysid halka ay ku taalo waa inaad eegtid iyo sharciyada wadankaas ay ku taalo hay'ad ma jirta loogu talagalay barafimyada iyo shirkadahan online ku shaqeeya inay daba galaan oo sharciga waafajiyaan tusaalahaan in Canada iyo Mareykan oo kale North America shirkada aad bay xadida waxaan garanayaa shirkadii funding talent loo oran jiray inay ku dhigeen shirkadan forex fund inay qabsadeen yani waxay ku qabsanayaan waxa weeye wax daqiiq ah oo hoos shaqooyinkooda hoos aan la dareemaynin ay dabagal ku sameeyaan kadibna way soo helayaan maxkamadda la tigsanayaan laakiin shirkada wadamadan kale ee aqaalahoodu ama sharciyadoodu aan si fiican u shaqeynin waxa jirta dabagal fiican ma sameyn karaan ka inta qodob hadaad u eegtid shirkada akoon ka qaado ku furo ku shaqeyso sanadka cusub insha Allah ka lacagta ugu fiican laga sameyn karo forex waxa weeye inaad akoon weyn iibsatid kadibna aad lacag ku sameysid hal mar oo withdrawal ka sameysid ay 30,000 40,000 20,000 aad sameyn kartaa ka walaalayaal ku dadaala inaad meelaha ugu fiican maadaama xirfadii aad barateen in lacag fiican sameyn kartaan macquul ma aha inaad akoon soo furtid lacag soo amaahatid 10,000 5,000 oo lacag riyaal ah aad lacagta ku shaqeysatid macquul ma aha iska ilaali lacag magaranaysa laakiin hadaad akoon iibsatid oo faa'iido ku dartid oo kadibna asaas lacag fiican oo percentage-kaaga fiican uga baxday macquul weey marka shirkadan kale akoonka 30,000 hadaad iibsatid oo intaas oo bound ah kadibna aad ku dartid 10%-keedu waxa weeye 3,000 ama aad ka sii badisidba marka koobaad lacagtaada la baxaysa marka koobaad waxaa laba bilood 10 ku sameyn kartid oo macquul marka funding next waa tan iyadana waad arki kartaa funding next oo shirkadan iyadana waxa weeye shirkad aad macquul ah weeyaan akoon waaweyn oo challenge ay bixisaa akoonka stellarkan waliba aad ugu talinaa marka waxaad isku daydaa intaad muuqaalkeena soo daawatid YouTube-keena ku jira some invest kadibna aad akoonka ugu fiican stellarka loo yaqaano akoon weyn aad ka qaadatid akoon weyn marka qaadatid faa'iidada hore aad sameysidba waxaad sameyn doontaa lacag aad u badan oo macquul ah akoonada waaweyn oo kale akoon 200 akoon 300 akoon 100,000 iibso awoodiisa oo awoodaada oo dhan isugu gee baas kadibna faa'iido ka samee maalinta aad faa'iido ka sameysid waa maalinta lacagta ugu badan aad la bixi doontid dadkii sanadkan la soo dhaafay 2023 lacaga ugu badan sameeyay waxa weeye koono challenge waaweyn bay iibsadeen 200 300 kadibna awoodooda dhan isugu geeyay kadibna faa'iido fiican ayay ka sameeyeen tusaale ahaan ninka hal mar 50,000 kala baxa tii muxuu uga baahan yahay akoonka kale buu maal gashanaya lacag inta leegna wuu haystaa marka saaxiibayaal isku daya in akoonka waaweyn uga furataan ku shaqaysataan waa qofka isuba qofka xirfadiisa huwa weeyaan ka shirkada funding next waxa weeye akoonada challenge-ka bixisa shirkada funding refix-na waxay bixisaa akoonada funding-ka ka labada mid ka dooro annagana waa nala soo hadli kartaan
telegramkeena Somifest waxaad ka helaysaa descriptionka linkigiisa kusoo biir kadibna waa nala soo hadli kartaa whatsappkayga nagala soo hadal akoonka waan kula furaynaa sidoo kale akoonada dadka raba in loo baasiyo sanadkan cusub waxaan rabnaa istaraatiijiyad cusub baanu keenay akoono badan baanu baasin doonaa insha allah dad badanna waanu qaban doonaa nala soo xiriira insha allah dadka aan xirfadooda ku kalsoonayn iyagu magaranaysa raba akoonkooda inay mentorship ay helaan oo dad magaranaysa la qabtaan iyagana waxaan u haynaa mentorship dhammaystiran classyaanu samaynay waxaanu samaynay signals diyaarsan baanu siinaynaa qofkaas waanu la baasinaynaa ka awoodda ugu badan sanadkan waxaanu siinaynaa Somifest telegramkeena si fiican buu korayaa insha allah waxaan rajaynayaa telegramkeena inay noo sii kori doontaan asxaabtiina la sii wadaagi doontaan kadibna annaguna si daily ah aan maalin kasta wax kasta xog kasta aan loo magaranaysa wadaagi doono Somifest YouTube-keenan subscribe saar insha allah commentigana waxaad doonto noogu soo qor ama su'aal ah like na saar insha allah aad baad mahadsan tahay muuqaalo sidan oo kale aan soo samayn doonaa wassalaamu calaykum